بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد علي عابي agaasimaha maamulka iyo maaliyadda dowladda hoose degmada Berbera. waxaan jeclahay inaan halkan ku soo gudbiyo oo idin la wadaago waaxdan mas'uulka ka ah ee dowladda hoose degmada Berbera mas'uulka uga ah waxyaabaha ay u xilsaaran tahay waajibaadkeeda shaqo haddii Ilaahay raahdo. marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan isla dul istaago jaranjarada maamul ee ay dowladda hoose ee degmada Berbera ay leedahay. bodiga ugu sareeya ama entity-ga ugu sareeya markaan ka hadlayno maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera. siyaasadda guud iyo qorshayaasha guud iyo hagitaanka guud waxa ugu sareeya waa golaha deegaanka ee degmada Berbera. golaha marka laga yimaado cidda ku xigtaa waa maayarka ama duqa magaalada Berbera. duqa waxa ku sii xiga ku-xigeenka iyo guddida joogtada oo maayarka maayar xigeenka iyo xogayaha isku noqonayaan. waxaa kasii hoos farcamaya xogayaha marka laga soo daadego waxaa ka hoos farcamaya waxa weeye waaxyaha ay ka kooban tahay dowladda hoose degmada Berbera oo 6 waaxood ah. 6daa waaxood ayaa waaxda maamulka iyo maaliyaddu ay ka mid tahay. structure ahaan markaynu eegayno waxa ay kaga jirtaa waa bartaa waxay hoos imanaysaa executiveska xafiiska xogayaha waaxyaha dhammaantood iyagoo wada hoos imanaya. waaxda maamulka iyo maaliyadda markaanu ku soo gudadego maamulka iyo maaliyaddu waxay ka kooban tahay 2 qaybood. labada qaybood ee waaxda maamulka iyo maaliyaddu ay ka kooban tahay waxa ay kala noqonayaan ama ay noqonaysaa waa qaybta maamulka shaqaalaha iyo qaybta maaliyadda. oo labada qaybood ay u kala farcamaysaa marka ugu horeysa ay u kala jabaysaa waaxda maamulka iyo maaliyadda. qaybta maamulka shaqaalaha wuxuu sii yeelanayaa faracyo. faracyada uu qaybta maamulka shaqaaluhu u kala baxayo waxaa ka mid ah farca shaqaalaha iyo farca tababarada. labadaa farac ayaa hoos imanaya qaybta maamulka shaqaalaha. qaybta labaad ee maamulka maaliyadda oo noqonaysa qaybta maamulka maaliyadda iyadana waxaa kasii hoos farcamaya ilaa 5 farac oo noqonaya farca xisaabaadka, kaydka, soo iibinta iyo khasnada. 4taa farac ayaa ka hoos farcamaya. cumuumiyan waaxda maamulka iyo maaliyaddu markaynu eegayno structure-keedu waa sidaa. waxa uu ugu sarreeya waxa weeye position-ka agaasimaha maamulka iyo maaliyadda, xoghayntii waaxda, labada qaybood kala noqonaya maamulka shaqaalaha iyo maamulka maaliyadda. maamulka shaqaalaha oo 2 farac u kala jabaya iyo maamulka maaliyadda oo u kala jabaya iyaguna 4 farac. waxaan doonayaa inaan yar dul istaago marka position-kan maamulka iyo maaliyaddu soo ku yimaada ama agaasimaha maamulka iyo maaliyadda yuu hoos tagaa yuu reportka siiyaa yaa amra yaa magacaaba. markaan ka hadlayno position-kan agaasimaha maamulka iyo maaliyadda waxaa magacaaba maayarka ama duqa magaalada degmada. shaqo ahaan cidda uu reportka siiyo toos u hoos yimaada waxa weeye xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Berbera ahna xogayaha golaha deegaanka. waxaan isweydiin karnaa shaqada ay waaxdu u xilsaaran tahay ama waajibaadka shaqo ee agaasimaha maamulka iyo maaliyaddu maxay noqonaysaa. qodobo fara badan ayaa ka ratimaya waajibaadka shaqo ee ay waaxda maamulka iyo maaliyaddu u xilsaaran tahay si ay u gudato ama ay u dabasho ujeedooyinka iyo ahdaafta loo aasaasay waaxdan maamulka iyo maaliyadda. waxaan doonayaa qodobadaas oo 12 qodob ah ilaa 20 qodob inaan mid u yaro dul istaago oo yaro dul carro haddii la yiraahdo. waajibaadka shaqo ee agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee waaxdan maamulka iyo maaliyadda uu garwadeenka ka yahay number 1. waxyaabaha waajibaadka ah ee uu qabanayo agaasimaha maamulka iyo maaliyaddu waa hubinta iyo la socodka dakhliga kala duwan ee dowladda hoose ee degmada Berbera urursato. dakhliyada kala duwan number 1 waxa weeye hubinta ilaalinta dakhliga soo gala dhammaan dowladda hoose degmada Berbera. waxa labaad waa kormeeridda habsami u socodka diiwaanada xisaabaadka ee dakhliga lagu ururinayo
iyo kuwa kharashaadka lagu kaydinayo labadaba hubinta kaydinta ilaalinta diiwaanada dakhliyada iyo diiwaanada kharashaadka labadaba waxa saddexaad diyaarinta iyo gudbinta miisaaniyad sanadeedyada ay ku shaqeynayso degmadu dowladda hoose degmada Berbera in la diyaariyo oo la jaangooyo miisaaniyaddii degmada kharash iyo dakhli oo isu dheelitirmaya qodobka afraad hubinta heshiisyada ama qandaraasyada iyo in shaqooyinka la fuliyo shaqooyinka ka ratimaya ama hoos imanaya qandaraasyada ay dowladda hoose dhinac ka tahay ay gelayso inay soo dib u fuleen inay lacagtooda fuleen hubintooda iyo kaydintooda iyo ilaalintooda qodobka xiga hubinta saxnaanshaha mushaharaadka shaqaalaha dowladda hoose degmada Berbera oo dhanba qodobka lixaad isku hubinta dakhliga maalinlaha ah iyo xaashida kaydka ee bank slip lacagta ay dowladda hoose degmada Berbera si dhayliga u qabato ee ku dhacaya banka dowladda banka lacagta ku dhacaysa lacagtii dowladda hoose qabatay inay sax tahay in kale isku hubintiisa waa waajibaadka shaqo ee waaxdan ka ratimaya hoos imanaya number 7 kala talinta maamulka dhinaca maamulka iyo maaliyadda maamulka guud ee dowladda hoose degmada Berbera kala talinteeda iyo ka tala bixinta tala siinta maamulka dhinaca xisaabaad haday tahay iyo dhinac maamul haday tahay labadaba qodobka 8aad haynta diiwaanka hantida maguurtada ee ay degmadu leedahay qodobka 9aad haynta ledgeriska muhiimka ah kaydka ama personal files ahaadaan faylasha shaqaalaha dhammaantood hayntooda iyo kaydintooda iyo ilaalintooda qodobka 10aad mas'uuliyadda saxaaxyada kharashaadka baxaya marka uu maamulku soo ogolaado wax allaale wixii kharash baxaya ansixin ka bacdi ilaalinteeda iyo hubinteeda iyo dabagalkeeda qodobka 11aad hubinta hawlaha shaqo ee xafiiska shaqaalaha kormeeridda iyo dabagalidda dhammaan hawlaha shaqo ee hoos imanaya ama ay qabtaan xafiiska shaqaaluhu qodobka 12aad saxaaxa labaad ee fasaxyada shaqaalaha shaqaaluhu markay fasax qaadanayaan ama fasax galayaan ansixintooda agaasimaha maamulka iyo maaliyadda qayb ku leeyahay qodobka 13aad hubinta habka loo maray lacag u beddelka saacadaha shaqada ee shaqaalaha marka shaqaaluhu shaqeeyaan saacado dheeraad ah ama waxaan loo yaqaano overtime-ka hubinteeda iyo jaangooyintooda iyo in sidii saxda ahayd loo maray hubinteeda iyo dabagalkeeda nambarka 14aad saxeexa warbixinta maalinlaha ah billaha ah sanadlaha ah ee ku saabsan dhammaan waaxda shaqooyinka ay qabato sida maaliyadda ama shaqaalaha qodobka 15aad saxeexa xaashida soo iibka ama waxaan loo yaqaano local purchase order inuu agaasimaha maamulka iyo maaliyaddu jaangooyo inay u taalo shaygan la soo iibinayaa kharashaadkii loogu talagalay xirkaasi inuu dhammaaday in lacag loo hayo intaasoo dhamma saxiixeeda iyo hubinteeda shaqadiisa qayb bay ka tahay qodobka 16aad amar bixinta qabashada iyo bixinta alaabta bakhaarka marka uu hubiyo in dhammaan nidaamkii sharci uu u dhammaystiran yahay marka la soo iibsado alaabta qabashadeedii iyo kaydinteedii marka uu dhammaan shuruucdii loo baahnaa ee iib iyo alaabtaas standardskeedii ama specificationkay lahayd ay dhammaan la wada ansixiyo qodobka 17aad qabashada iyo amar bixinta diyaarinta kharashaad marka la qabto wadda saxa ku soo galay diyaarintiisa iyo habeyntiisaba qodobka 18aad hubinta saxeexa iyo gudbinta cashuuraha dowladda dhexe dhammaan wixii cashuura dowladda dhexe loo qabto in loo gudbiyey amountkii saxda ahayd iyo sidii saxda ahayd bil loo gudbiyey qodobka 19aad hubinta warbixinta banka ee bilaha ah bank reconciliation waxaan la yiraahdo lacagta ku dhacday akoonada dowladda hoose ee banka uga furan iyo xisaabaadka ama cash bookiyadii ay dowladda hoose lahayd in la isku balance gareeyay inay isla yihiin iyo inaan islahayn hubintooda iyo dabagalkoodaba qodobka 20aad fulinta wixii hawlo dheeriya ee ay maamulka u yigmadaan marka agaasimaha maamulka iyo maaliyadda aan ahay
qodobada 20 qodob waxa weeye waajibaadka shaqo ee agaasimaha maamulka maaliyadda hoos yimaada maamulka maaliyadda waxa kale oo xil saaran yahay oo yahay kusimaha xogayaha dawladda hoose degmada Berbera marka uu xogayuhu fasax galo ama uu shaqada ka maqan